اوكي انا واحد هاي ادونك لو هم بيجر جرتا هاي labada hambeegar oo jirta midna waa la cunaa sax midna waa la daawadaa sax dhalinyarana ahay sax waxaan jeclahay hambeegarka la daawado soo waxa dhahay magaalada Hamburg ma laga helaa hambeegarka la daawado u badan yihiin anigoo hadalkayga markaas u dhigaya gabdhihii quruxda badnaa magaalada ma joogaan sababtoo waxaa magaalada Hamburg kula kulanay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Axmed Soomaali oo ahaa wariye ka soo shaqeeyay warbaahinta Soomaalida wuxuuna si farxad leh ku jirto inuu soo dhaweeyay magaalada Hamburg waxay sidoo kale liil isdhaafsadeen wareysi xasaasi ah iyo kaftan gudoomiyaha sidoo kale wuxuu fanaanka ka codsaday inuu bandhig faneed caalami ah ku sameeyo magaalada Hamburg maadaama ay ku nool yihiin Soomaali aad u fara badan waana kana gudoomiyaha liil ayagoo xog wareysanaya naga soo boqday magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka maanta waxaan ku suganahay caasimadda labaad magaalada Hamburg waxaan arkaynay oo adoo falanqeynayo intaan kelmadaada aad u gudbiyay magacan Hamburg oo hamburger iyo wax isku qalqaldaaya maxaa ka waday wala isgilo okay ani waxa dhahay adduunka laba hamburger jirta hay labada hamburger oo jirta midna waa la cunaa sax midna waa la daawadaa sax dhalinyarana ahay sax waxaan jeclahay hamburgerka la daawado soo waxa dhahay magaalada Hamburg ma laga helaa hamburgerka la daawado u badan yihiin anigoo hadalkayga markaas u dhigaya gabdhihii quruxda badnaa magaalada ma joogaan sababtoo ma dhahayi gabar inaan arko ma rabi sababtoo raga ahayd raga gabar u baahan yahay markaas soo sidaas darteeda u dhahay laakiinse wax oo adiga fooda iyo dhalinyarana waa iska fahmeena waxa adiga xumaan iyo waxaas maana ka wadin waxa ka wadin haddana sometimes marka dadka nabadgoonayaasha galbaaga ay taagin hadallada ka hadis waa laga fiirsadaa nabadgoonayaasha warku ku leeyahay iska gaas soo haya inaad gelin rabo arif waa nabadgoonayaasha geeskayga jooga marka ina hadalka waxa waaye sida uu qurux badan gudoomiyaha darabkayga jooga marka hadalka sida uu qurux badan inaan u dhaho waaye marka hadalka micnaha aan kala hayo waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda badan magaalada ma joogaan runta ku sheegna hamburger real badan waa arkay صح ما شاء الله كيف معنا لكن كيف معنا ماكدونالدز soo dhawow intaas kaftanay ahayd magaalada Hamburg waxa ku nool Soomaali fara badan sida gudoomiyaha ururka dhalinyarada walaalkan Cumar oo idin sheegayba magaalada waxa degan Soomaali fara badan Soomaalida soo badan ka afdal cusub wala wada cusub laakiin noloshu waa bilow waxaan diyaarinaa waxyaabo isbedel diyaaro iskuulada waxbarashada ummadda shaqooyin yaryar aan hadda abuurnay oo qaarkaan iyagana waxaan ay business oo abuureen ganacsiyaan bilownay bulsho isku xiran baa soo socota marka magaalada waa inuu yahay insha Allah meel meesha ka buuxoon madan halka ka buuxoon ay ku barnaamijyo waaweyn oo maaragtay dhanka fanka iyo dhaqanka ah aad noo qabataan oo maaragtay bulshada si loo horumariyo waayo dad dhaqankooda wax ku yimid markaas insha Allah thank you horta runta hadii la isku sheego kulligeena maana u imaan wadamadan qurbaha maasha waxa u imaanay qof walba qofna family ka soo timi qofna dana gooniya keeneen qofna horumar u tiigsanayay soo qof walba oo meeshan imaaday wuxuu u imaaday wuxuu lahay targetkaagana haddii aad nolosha ka dhigto meesha inaad fadhiisatid ama balwad aadid ama hawadan oo beenta ay ku qaado targetkaaga ma ka meel dhali kartid adduunku waxa fiican in la barto sida loo noolaado dadkana loola noolaado wadankan horta dadka iskale dadka dhistay abaala u heedaa sababtoo dhulkooda ayay nagu soo leeyihiin saasay tahayna annagana waxaa laga rabaa targetkeena inaan ka miro dhalno soo dhalinyarta Soomaaliyeed sida haddeertan gudoomiyaha uu ka dhawaajiyey shaqooyin waxbarasho business wax kasta leedahay abuur soo adinkana waxaa isku dayeen fursadaas qaaliga ah oo xilligan aad haysateen inaad ka faa'iidaysateen sababtoo yaa og berito inay jiri doonto fursadaas ma ogin berito waxaa noqonaysaa inta xoogga leedahay faa'iidayso
xoog lagu sheegayo nin saaxiibkiisa saacada garabkayga taagan wuxuu dhahay xoog lagu sheegayo muruqa ma ahan xabadku la dhisayo ma ahan xoog lagu sheegayo waa caqliga iyo khibradana waxa awood loogu yeeli karaa waxbarashada iyo qaabka u fikiraysa business soo ka faa'iideysta fursadana haysatiin annagana waxa waaye dhankeena ka soo gelina ka faa'iideysanayna insha Allah ta'ala ana dhanka hadda u soo jeesto xafladaha sida walkii ka dhawaajiyay gudoomiyaha xafladaha sida dhalinyarta xalay aan ku wada hadalnay ama uga ballan qaaday haddii corona uu gees maro waa corona markuu gees naga maro insha Allah ta'ala ilaahay horta naga qaado xafladda ugu horeeya aan qabanayna insha Allah ta'ala hamburg ku qabanayna haddii ilaahay raali ka noqdo ma sha Allah haddana waxa waa hadda ka hadli karno corona sababta caafimaadkeena ma muhiim ah dad isku ma keeni karno waa ogna hadaa wacno waa la isku imaanaa laakiin dad hadda isku ma keeni karno corona gees noo maro insha Allah ta'ala waa shidanayna aad u mahadsan tahay waan soo dhaweynaynaa mar labaad mar saddexaad gubaabadaadana waxaan jeclahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax ku qaataan waayo waxa ujeedada aan wadankeena ugu soo tagnay oo nafteena alisa aan soo gelinay aan qurbo u nimid waxa weeye inaan mustaqbal qurxoon aan dhisano الفنان iyo promoter Amore waa mahadsantiin insha Allah ku soo dhawaada Hamburg aad isxaq waraysi dheer kadib fanaanka iyo gudoomiyaha ayaa gudoomiyaha wuxuu inoo kaxeeyay magaalada Hamburg si aan u soo daawasho tagno maadaama ay tahay caasimadii labaad ee dalka Jarmalka magaalada Hamburgna waa magaalo run ahaantii aad iyo aad u qurux badan gudoomiyaha ayaa asxaabtii la socotay ugu horeeyay walaalkii Amar iyo Maxamed DJ iyo Salman Fay oo ah kaameraamaankii kamarada inoo duubiyay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa asxaabtii la socotay gudoomiyaha kale aan magacyadooda halkaan ku soo koobi karin gudoomiyaha sidoo kale wuxuu magaalada Hamburg inaga soo tusay meelo badan oo loo dalxiis tago run ahaantii waxa sidoo kale kamid ah meelo ay kaliya degiin dad qani ah waxa sidoo kale kamid ah meelo qadiimi ah magaalada caan ay ku tahay gudoomiyuhu iyo asxaabtii la socotay waxay sidoo kale ina saareen doontaas oo nagu soo wareejinaysa magaalada Hamburg waxaan sidoo kale wada galnay sawirro xasuus ah anaga iyo gudoomiyaha iyo asxaabtii la socotay halkan ayaan sidoo kale idinku soo gudbin doonaa sawirradaasi waxaan halkan ugu mahad celinayaa gudoomiyihii iyo asxaabtii la socotay mahad celin ballaaran halkan aan ku soo koobi karin magaalada Hamburg waa magaalo aan u xusi doono aniga iyo fanaanka sidoo kale LB wuxuuna ballan qaaday in magaalada Hamburg ay noqon doonto magaalada ugu horeysa markii laga baxo lockdown-ka in show aan ku qaban doono insha Allah مع السندين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل سؤالي وحقيقي مرة والبمركة مقالة تجيس يهافتو إن الله كلامتو ضدك مارتي ومعقول السن ياشا وعوي أحمد الصومالي وقدومي جاليد الصومالي ده همبروك هرد قدومي دورشة على الدورشة وحوي مكسب حرس وما سنتهي doorashadii wali nooma qabsoomin wayna ka baaqatay sabab la xiriir corona awgi marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noo qabsoonto bacda corona xaaladda marka laga baxo sababtoo ah xaalad cakiran baa hadda lagu jiro insha Allah marka waxaan leeyahay Daawud Amore adiyo alfanaan Lilbali soo dhawaada Hamburg soo dhawaada waxaan soo dhawaynaynaa kal furan la furan gacmo furan ma garat sidoo kale soo dhawaada magaalo shoona oo aad u qurux badan waxaan rajaynayaa inaan ugu soo laaban doonto insha Allah Salman Fay كما سلمان فاي say something asxaabta salaamada dhawaad meel waa joogtiin waa aniga Salman Fay laakiin la joogo mid qariib my boy la joogo ya walaafi ma aragtay Hamburg dadkii waxa waaye dad isla egna Hamburg la ka imid Hamburg magaaladina waa ma fahant brada Hamburg waxa dhacday bawr xitaa uma baahan maro iskari baabuur muu baahan brada koode gaskiil u baahan tahay SMR tareenka meesha gisho tareen waaye wow meesha baabuura gadana brada baaki mihibeysi garaaxa waa badan brada jaama jiro yuwan dhacda ku soo dhacay subax yuwan bawr laga qaatay أنا جوك إسماعيلي. دوغ دوغ. يا أوبليش أصلا سوى كنا نبغى يسوق تورتان. مركا هامبروك أنا كل يوم عمل له صلاة لا بكرة. سيف عن مرة مسودوين. لا ما لقوا مسوق بكرة لا. مسوق بكرة برا. هاي. هل لكن ويدينا سؤال. دمي ها. مقالة برلين. أورو. نيو مقالة عاصمة واسكتها معنا نكل اسمها. الله جهر يا مستر اليوم. يوم ملا الصومالي ماشي تيار ما رحت. اسمه إبركع. لا
laakiin meelaha kale waxaa jirto meelo fara badan oo magaalada markaad tagto aadan ku arkayn dadka madowga ah si fiican for example Greek hadda soo mar Soomaali istaago kala war samaan sax aad iyo marka Soomaalidu waxay tagtaa Soomaalida joogto tiraahan intee la eg wallahi mo adi 400 oo 500 laakiin magaalada madax degan most of صح maarta waxay degan magaalada banaankeeda banaankeeda si fiican halkan magaaladan Hamburg waa caasimadda labaad waddanka Jarmalka waxaa degan Soomaali qiyaastii 3500 3500 ha Hamburg area-deeda ma fahant karaysyo badan oo Hamburg hoos yimaada jira gobolka kale laakiin ka tirsan iyada nafteeda wax ku nool Soomaali kale oo fara badan marka taas ka dhigaysa tirada inay badato caadiyan marka insha Allah waa magaalada marka waxa way magaaladan waa la soo laab kara markaas dadka waxa way dad badan oo maarta degan ba aad iyo dad badan degan waxa u baahan yihiin laakiin in la hago dadka wada cusub yihiin waxaan hadda bilowday dhalinyarada ay ku dhiiradeen horumar fara badan inta badan dhalinyarada waxay sameynayaan osbildino waxay sameynayaan maaragtay practice wax liidaan waxa ayniga aan qabto ba ayna maarta waxa way chef aygu isku hawo ما شاء الله دنيا سكسر هذه سيلف امبلويمنت سيلف يعني هذه سلبي ستاند سلبي ستاند marka horumar fara badan ka socda ganacsiyada aan loo bilowday anaga ku dhana hadda waxa wadnaa barnaamij aan rabno masaajid aan ku furno ma sha Allah waa dadaalayna insha Allah hadda waxaan caruur fara badan oo ilaa iyo 60 meey gaarayo aan wax ku dhignaa meesha aan wax ku dhignaa waa meel Turkiga ay leedahay Turkiga leh salbi staan inaan noqono rabnaa meel anaga aan leenahay marka horumar badan insha Allah ma sha Allah Allah nala garab galo badankeena waa cusubna saa la socoto marka anaga waxaan ahaa model ilmaheena maartay maartay nolol fiican waa inay jid u sii sameeyaan aad iyo aad wixii maanta aan qabanno bay berito la dhalinyarada hiigsanayaan caruurta insha Allah wadamada kale soo Danifiyanka waxay nooga hormareen yani ma taqaanaa waxa way dadkoodii waa jiilka hadda labaad hadda waxa way hadda daad tagto dad badan maartay kaga sii horeeyay moogta صح si fiican aad baan idin salaamay akhyaarta ay bro magaalada waxa leeyahay 3500 qof oo Soomaali ah soo gudbiyay shay qabow waa ugu dishay 3 uma socotay 3 qabow waa ugu socotay Berlin inta qabow Berlin Berlin inta qabowni waa ka dawanishay maxaa Berlin inta qabow Berlin sababta taqana kale in Berlin sababta taqana Berlin waa magaalo qadiimi ah okay kul badan ay keedsatay kulkii soo tufaysa laakiin magaalada waa magaalo fresh ah dhul banaana baa dhismayaal laga dhisaa la boobsiinaya maya Berlin ana ku sheegayo oo Afghanistan wax ku soo dilay Syria wax ku soo dilay oo Muqdisho ku soo dilay dilayaasha martamiya Berlin artay wuxuu jirtaa 4 daqiiqo waxay soo xasuusiyay sheeko maal loo jiraa'idkan oo la yiraahdo Hoytag ha baa wuxuu soo qoray warbixin dhahaysa maxaan u weynay barafka maxaa u weynay waa looga faaloonaa ha barafka waxaan u weynay dad wax soo dilay baa waddankan yimid gaalada barnaamijkaas baa dilay Berlin ay aan biliga saaxiib